kulanti wacan oo wanaagsan idilaantiin baddaawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegi doono ninka labaad ee adduunka ugu taajirsan ee Warren Buffett. Halye Warren Buffett dhalashadiisii waxa ay ku beegneed 1930kii. Wuxuu ku dhashay Omaha, Nebraska oo dhacda bartamaha galbeed ee dalweynaha Mareykanka. Omaha, Nebraska waa magaalada afartanaad ee ugu weyn dalka Mareykanka, waxaana lagu qiyaasaa inay ku nool yihiin dadyo kor u dhaafaya 466,000 oo qof. Warren Buffett wuxuu ahaa ilmihii labaad ee Howard Buffett iyo weliba Layla. Warren Buffett aabihii Howard Buffett wuxuu ahaa xubin ka mid ah golaha Koongareeska ee dalka Mareykanka. Aabihii asal ahaan wuxuu kasoo jeedaa Scandinavian, hooyadiina waxa ahayd Spanish. Ardaygii maskaxda badnaa, niyadsamida fiicnaa, ganacsadaha dhabta ah noqday ee bartay cilmiga barashada dhaqaalaha iyo ganacsiga ee Warren Buffett maanta waa ninka labaad ee dunida ugu lacagta badan. Waxaa lagu naanaysaa uu leeyahay naanayso aad u fara badan oo ay ka mid tahay Snake of Omaha, Wizard of Omaha iyo weliba Oracle of Omaha oo dhammaantood ka turjumaya maalqabeennimadiisa aan caadiga ahayn ee uu tabcaday iyo weliba siday ugu faanaan dadyoga reer Omaha. Warren Buffett waxbarashadiisii dugsiga hoose waxa uu ka bilaabay Rose Hill Elementary School, kadibna waxa uu wareegay Alice Dale Junior High School. Wuxuu ka baxay jaamacadooyin kala duwan oo ka qaatay culuum aad u kala duwan oo barashada dhaqaalaha iyo ganacsiga ah ilaa uu gaadhay shahaadada PhD-ga. Warren Buffett ganacsiga iyo dhaqaalaha waxay ahayd riyo ku beerneyd ilaa iyo yaraantiisii oo mar waliba jeclaa inuu ka dhabeeyo. Warren Buffett wuxuu bilaabay ganacsiga xilli uu ku jiray dugsiga dhexe. Ha yeeshee Warren Buffett wuxuu si dhab ah u bilaabay arrimaha ganacsiga, isla markaana uu ka bilaabay dukaan yar oo uu lahaa awowgii oo lagu iibin jiray cabitaanka qabow, jaraa'idada iyo weliba xanjooyinka. Ha yeeshee waxay hawshu gaadhay gundhigii horumarineed ee ganacsigiisa Warren Buffett markii maalin maalmaha ka mid ah Warren Buffett iyo weliba saaxiibkii soo iibsadeen pinball oo ah agab yar oo lagu ciyaaro oo waqtigaasi ku kacaya $25 oo ahayd lacag aad u fara badan xilligaasi. Waxay bilaabeen inay ka helaan macaash iyo faa'iido aanan caadi ahayn ilaa ay bilaabeen inay soo iibsadaan qalabkii, isla markaana halkaasi ay ka bilaabeen ganacsigooda. Warren waqtigaasi waxaa da'diisa lagu qiyaasayay 11 sano jir. Warren markii uu jiray da'da 20aad, lacagtiisa waxa ay kor u dhaafaysay $9,800. Warren Buffett wuxuu ku biiray ururka GCSE oo uu xubin ka noqday. Intaa kadib wuxuu si bilaash ah ugu shaqo tagay magaalada Graham ee dalka Mareykanka, isagoo aanan qaadan jirin wax waliba mushaar. Ha yeeshee shirkaddii ganacsiga ee sida bilaashka ugu shaqaynayay waa laga eriyay, wuxuuna kusoo guda noqday magaalada Omaha City ee uu ku dhashay. Wuxuuna halkaasi kasii waday howlihiisii ganacsiga, wuxuuna sameeyay goob shidaal lagu iibiyo oo aan isaga marnaba anfacayn. Warren Buffett wuxuu guursaday 1952 Susie oo ahayd xaaskiisa u dhaxda, isla markaana u dhashay 3 carruur ah. Kadib sanado badan oo uu la daalaa dhacay nolosha, Warren Buffett waxaa la gaaray maalmihii farxadda iyo weliba raynta ganacsigiisa. 1957 wuxuu ku biiray ururka iskaashatada ganacsiga oo ay ku bahoobeen 3 qof, ururkaasi oo lagu magacaabi jiray Charlie. Warren isla sanadkaasi waxa uu u soo xareetay faa'iido ganacsiyeed oo aad u badan, wuxuuna iibsaday guri ku kacayay $31,000. 1958 Warren waxaa loo dhalay ilmihiisii saddexaad. Intaa kadib Warren wuxuu ku biiray iskaashato kale oo ganacsiga ah oo lagu qiyaasay iyadana ilaa 6 qof, wuxuuna noqday madaxa shirkaddaasi. Wuxuu aad uga faa'iidaystay wadajirka iyo waxqabadka ku dhisan iskaashiga. Ugu dambeyntii Warren 1962 wuxuu noqday milyaneer. 1999 waxaa loo magacaabay mid ka mid ah ganacsadayaashii ugu saameynta badnaa qarnigii 20aad, qiimeyn ay samaysay Carson Group. 2008 Warren wuxuu noqday ninka ugu lacagta badan adduunka, waxaana lagu qiyaasayay lacagtiisa $62 bilyan. 2009 Warren Buffett wuxuu caawimo ahaan u bixiyay bar ka mid ah lacagtiisa ilaa uu soo galay booska labaad oo qiimo ahaan u dhiganaysay $37 bilyan. Warren
waa tusaale mudan samirka ganacsiga dhankiisa ah. haddaba weeraha Warren Buffett laga diiwaangeliyey waxaa ka mid ah maalgashiga ugu fiican waa ka naftaada aad gashato, wax badan oo aad barato baad wax heli. guusha waxaan ku qeexaa inta qof ay jecel. khatartu waxay timaadaa markaanad ogeyn waxaad qabanaysid. aad baad u mahadsantahay daawada haddaad ka heshay barnaamijkan isla markaana ku cajabiyey. fadlan like, share iyo weliba commenti noogu reeb. waxaana barnaamijkeena la socodsiinayay anigoo Cabdishakuur Maxamed Cali. intaanu ku kulmi doono barnaamijka xiga.